Liverpool vs Manchester United live in Anfield Stadium. ciyaar adag oo dhacday Manchester garoonka Liverpool. Fernandes ayaa baasay, Ahmed Diallo ayaa loo baasay. Bruno Mariano Mbeumo. Bernardo Mbeumo ayaa dhulay goolka ugu dhaqsiyaha badan Premier League isla sanadkan aan ku jirno hal ciyaareedkan. hal daqiiqo iyo wax yar second ayaa raacsanay 62 second ayuu gool ku dhaliyay Liverpool hadda ayaa u soo yiri inkastoo ciyaaryahan dhaqaaqda dhexe ee Macklas uu Van Dijk uu soo ku dhuftay saaxiibkiisa ayaa dhaawac gaarsiiyay balse Manchester ayaa ka faa'iidaystay fursadaas 62 second ama 62 ilbiriqsi ayuu gool ku dhaliyay Briano Mbeumo Ahmed Diallo ayaa gool bismillah best creative meel fiican ay ku dhex bixiyay Mbeumo ku dhex faa'iidaystay inta feeraha weyntan Manchester United bay ku qasaareen maadaama ay 60 waxay ku soo Tanote iyo Van Dijk ay tane inkastoo Tanote uu jalaafta ayuu soo kacay maqas laakiin balse waa laga hortuuray buluunta Manchester United ayaa hadda hogaaminayso 1-0 ciyaarta ay socotay qaybta koowaad waxay dhamaatay 1-0 halka qaybta labaad markii la isku soo laabtay Manchester Liverpool ay sameysay isbedelo halka ay isbedeladaas ay ka faa'iideysan waasay inkastoo ay keentay barbardhac Gisela ayaa Baloon uu siiyay minus fiican soo dhigay ama baala fiican soo turoosay taasoo ka faa'iideystay Jadbo ayaa laba darbood fursad oo horaan birta ku dhuftay gool diiday laakiin ayaa gool shabaq toobsaday ciyaarta ayaa markaas ay ku mareysay 1-1 inkastoo ay mareysay 80 iyo daqiiqadii u dambeysay ay ciyaarta mareysay xilli xun ay Liverpool baraajeysay waxay baraajeysay 78 daqiiqo markay mareysay ciyaarta oo ka dhiman 12 daqiiqo ayuu dhaliyay Jadbo halka Manchester United ay indhaha taagan inkastoo iyada la baraajiyay Manchester United ayaa cabsoonay lahayn gool labaad ama ugu dara oo balse Manchester United ayaa fursad heshay koorno markay mareysay 84 daqiiqo koornada ay soo celceliyay Balooni ayaa Harry Maguire ayaa Bruno Fernandes Balooni fooli macna waxa soo laabtay tortorne iyadoo dhulka degin ay korku saas uu sii daray lugtu ay ku sii daray oo dhinaca toornada dhinaceeda ahayd kadib waxa heeda oo fiican galay Harry Maguire oo taasoo 84 daqiiqo ku aamusay taageerayaasha kumanaanta kun ee Anfield ku sugnaayeen markaas ayuu ka dhigay 2-1 Liverpool buunteeda ayaa u yeeray inkastoo coach iyo ciyaartooyda cadeys ay taagan inkastoo ciyaarta dan laga saaray Salah maadaama meesha waxa uu ku haynin maanta ciyaarta maanta uu soo bandhigay inkastoo Salah uu tusinay under difaaci hore Liverpool ee garabka u dheeli jiray ayuu ku tiirsanaan jiray laakiin balse taas markuu maqnaado ciyaaraha adagbo taas ayaa Balomu awoor jiray inkastoo Liverpool ay buunteeda la yeeriyay ciyaarta ayaa ugu dambeys soo ilaatay 2-1 Manchester United ayaa hadda tor u soo kacday taalinta sagaalada ay imaatay Liverpool oo ku jirta taalinta Liverpool waxa ku jirta taalinta lixaad sinan jeclahay Liverpool waxa ku jirta taalinta waxa ku jirta afaraad ay ku jirta 15 dhibcood ee leedahay halka Manchester United 13 dhibcood leedahay sagaalad ku jirta 2 dhibcood bis ay u jirta taalinta koowaad Arsenal ayaa ka horeyso oo ku jirto 4 dhibcood ayaa lagu hayaa hogaanka halka Manchester City idana taalinta labaad ay carisatay ee idana leedahay 16 dhibcood halka Bournemouth idana 15 dhibcood isla wadaag Liverpool ciyaarihii Premier League falaqeynteeda Liverpool inta ay ku eegtahay wixii ka dhahaan qabiirada caalamka iyo ciyaaraha falaqeynteeda dambe inoo dhiban yihiin muuqaalada kale ayaan soo sameyn doonaa insha Allah hadii intana soo darto kuma sidii walaal qaali muuqaalka hadii like noo saar noona sheegay muuqaalkan